naagtana aniga in la soo furay bay ii sheegtay waan guursaday wiilka anaa dhalay wiilkaygii baan doonaya gartaa la taraafsii waxaa la yidhi waa laba mehri warninowna caynowna waxaad leedahay naagta wiilkana dee axmed garaad baa iskale waa in axmed garaad arrintii waxaa la yidhi wiilku gabadhii kama maarmo hooyadii marka uu nin weyn noqdo u soo noqo axmed garaadoo iska tag waayahay garaad cabdalle imise nin buu dhalay mase lahayaa nimankaas iga qudhoy sidii lagu kala xulay maadaama ay adeerkoodna uu ku simay abahoodna uu garaya arrintaa taariikh dheer bay leedahay ilmo garaad cabdalle 4 bay ahaayeen axmed iyo guuleed iyo maxamed iyo cali lababa isku bax yay ahayd maxamed iyo axmed iyo maxamed isku bax bay ahaayeen guuleed iyo calina isku bax bay ahaayeen waxaa ilmo garaad cabdalle u weynaa axmed garaad baa u weynaa dhaqankeenna iyo garaatooyada garaadka haddii lagu caana shubo maalintii wiilka u weyn uu qaangaaro ama masuulka uu qaadi karo lama yidhaahdo u bannee meesha mar haddii lagu caana shubo garaatooyadu u dhammaystaa garaad yaasiin ilaa iyo intuu ka dhimanayay isagaa garaad ahaa ilaahay hadduu kuu roon yahay ilmo garaad cabdalle iyagoo waaweyn oo axmed garaad uu caligari nool yahay yuu garaad yaasiin garaad ahaa marka waxaa dhacday axmed garaad waa la dilay axmed garaad gabadh nin waxaa la yidhaahdaa lagu sheegaa wuxuu ahaa qalqaaliya oo aan rag waxba isaga tirin oo ilaahay hadduu dee ina garaadna ah markaa una weyn ilmo garaad dad iyo duunyaba markaa dee waxaa jira axmed iyo cali iyo warfaaya waa jiraanoo nin aan dee tulkiina isku hallayn ka qabaa nina isaga waxaynayn nin waxaa la yidhi gabadh la yidhaahdo mareexaana oo la yidhaahdo faadumo gaarshireed oo intay qoladan markaa dadku xitaa qabiilooyinku sidan habar gidir intay u caruuro dhashay mid ya laba soo dhashay oo carmalisay oo aad u qurux badan oo reerahooda ku soo noqotay iyo xodxoti carmal baan ahay waa la soo furay wakaa adigu gabadhii buu xaraystay gabadhii caruur baa ka maqnayd midhaa markii cabaar la wada joogay bay habeen iska dustay reerkoodii isna wuxuu ku tuhmayey in ilmo uurka uu galay cabaar warwaraysay oo muddo oo gabadhii horta waa noqotay oo waa la arkay in ay zaa'id uu ku jiro ninkii qabay wuu sheegay marka waa la sugay intay ka dhalaysay dadku markaa dhiigga waa ka baqi jiray wiil bay dhashay wiilkii ay dhashay waxaa la yidhi xoolaha geela ha la hor dhigo ilaa uu gacanteena yuusan ku bixinayn waa la hor dhigayo awrkii baarqab yaa mar walboo la hor dhigo ilaa 3 jeer 4 jeeni ka kala rida waxaa la yidhi kani waa ayaanle leynaan iska dilin waa qabiilkan ballaaran ee haddeer ayaanle la yidhaahdo degan dhuursa mareeb waa qabiilkaa iyana waa is yaqaanaan waa la jeclaaday wiilkiiyo waa la haystay axmed garaadoo geenyadiisii iska wata yaa galabtii dambe soo dhacay naagtana aniga in la soo furay bay ii sheegtay waan guursaday wiilka anaa dhalay wiilkaygii baan doonaya gartaa la taraafsii waxaa la yidhi waa laba mehri warninowna caynowna waxaad leedahay naagta wiilkana dee axmed garaad baa iskale waa in axmed garaad arrintii waxaa la yidhi wiilku gabadhii kama maarmo hooyadii marka uu nin weyn noqdo u soo noqo axmed garaadoo iska tag axmed garaad waa soo noqday dhex markuu marayay buu meel geed hoostii iska seexday nimankii midhaa kamaba ay xarin way yidhahdeen ninkani warkaa yuusan geynin tolkii waa la usxabaalay raacdadii baa dishay isagoo hurdaa madaxa lagaga dhuftay wax waa la aasay waa la qariyey haddaad maqashaan caligeri baa wax doonay caligeri cidduu doonayaa waa aabbihii wuxuu ku doonayaana waa geenyadii u watay buu ku raadinayaa weliba dadka qaarkii taarikhyahanadu waxay yidhaahdaan geri baa la oran jiray cali markaasuu la baxay oo raadinayo aabbihii meeshuu ku dambeeyey magacuu ku raadganay magacuu ku raadganadu
markii dambe ee laysu tegay lays arkay qoladaasina tiri waa cali inaguna aynu gari u naqaan kadibna waa cali laakiin yaani sheekada waxaynina cali gari waa uu tegay nacas buu iska dhigay dhulku dhex maray wuxuu raadinayaa waa geeyadii gurigay joogto geeyadii aabihii watay gurigay joogto dudub lagu galay oo de afartan habar gidir iyo adeerkoodu way waa tan inana halkaa aynu iska sheegano oo gabar buu xodxotay oo xogtoo dhan u sheegtay oo isna uu wiil kaga yimid celi ninka la yiraahdo ee duduble yuu kaga yimid warkii buu soo qaadayo in Axmed ay qoladaasi dishay geeyadiina uu wadaayo makhraatiya markaas al lagu saaray waxyaabaha ayna waxaa ka mid ah heesahan aynu geel ugu qaadnay la yiraahdo adoo gaabtaa gaas la wacayo gorsay habar gidir gaalada hawiye laga soo guray waa la galay oo la galay ilaa ay markii dambe garaad yaasiin erga u soo dirsadeen oo yiraahdeen colka hana laga taay waa bixinaynaa wixina lagu xukumaba garaad yaasiin colkii waa ka daba tagay colkii waa soo ceshay isagoo colkiis gelin soor meesha la yiraahdo ciidankii dhulbahante iyo wafdigii dhulbahanta lagu soorayay oo waa gelin dhan baa ciidanka la soorayay tareentu ka qabo garaad yaasiin halkaas ku dhintay isagoo nabadii xiray oo arintii dhameeyay oo nimankii wixii xukun ahaana laga qaaday halkaas garaad yaasiin ku dhintay ilaa iyo hadda way siyaartaan waxay yiraahdaan waa awoogayo gelin soortan inoo dhow ayaan la iyo habar gidirba waa siyaartaan marka waxaa dhacday يا أحمد قراد عرض وادنت وحاصو هري صدح ذي كله قول إدوا كوين يهي محمد لو حوليه بحض يدا على حيض بهي بحر ما حشو اسقبط خلق هسكين قول يا محمد لبدي إننا ولا لها أها اسقبط كود وحكيم وروان كوين هي يا ما بحض يدا يا قراتو يدا حي مدادتكنا وكلت على استي de walaalkii cali baaba qabanaya walaalkii cali oo isku bahaayeen de wuxuu dhaw walaale ay guuleed isku bahaayeen baaba garbadu uu qabanaya marka dambe oo le war wad khaldan tahay joog sidaas ay isqabadkuna halkaas uu ka yimid sababta isqabadku yimidna ninkii weynaa iyadoo wali garaadkii nool yahay dhintay yabcan marka caruurtu ay wada koraan inta garaadku nool yahay caruurta kale lama kala eego oo de ninkiiba laakiinse marka caruurta garaadku intuu dhinto ku siisima uu joogo caruurta waa la eega wartolo yaa idin bedeli doona ninkan marka halkaana kullayba midna waa la kala jeclaystay oo sida marka wuxuu badan tahay inay ku raacday bahdan bahda ku raacday xabadina bahda way garaad shirshoore ilaa garaad faarax ama aynu ilaahay ilaa garaad cabdalle waxa dhacdooyin taariikheed laga haya ma jira intaas hadeer aan tirinay wax ka badan ma jira waayahay garaad weydiinta u dambeysay barnaamijkeena galabta qaybta koowaad waraysiga ama warbixinta aanu ka qaadanayno garaadtooyada dhulbahanta waxay noqonaysaa taliska dhaqanaya daarood keeba ugu faacdeen xagga afsiinaha marka laga hadlay boqortooyada yaase ku xig ama yaase kaalanta saddexaad arinta sidaan horena u sheegay xaad raac male macna dhigaal sooyaal taariikheed oo sugan oo meel ku qoranayno hayno waan abtirsiyada hayd ma jiro marka abtirsiyada markaynu eegno de shirshoore wuxuu ka tirsanayay 7 daarood 7 wuxuu ka tirsanayay ta ugu soo xigta waxay sida aan anigu markaan baaray odayaashii taariikhyaankana ay wariyeen garaad shirshoore u horeeyay garaad daarood oo lagu caana shubo garaad shirshoore yaa ugu horeeyay muddo markay jirtay dadku tarmay la batay qarniyo ka dambeeyeen yaa absamay yiri garaad baan samaysanayna absamay oo harti uu yiri waa ka go'ayna waa la istilay arinta barigaad sidan garaad baan samaysanayaa iyo waa iska tagayaa iyo geed halkan aan ku caana shubanayaa ma ahan jirin de talis bay ahayd meeshan aad maqashaan aynaba dusheeda kabar ogaadeen la yiraahdo halkaas dagaalka ugu daraa uu ka dhacay absama waaqax galbeed buu qabtay wixii hargeysa iyo ka soo rogan dhulka buuraha goolis dhabarku ka maray
niman jid waaqo fara badan oo inugu hadhay dalka deganaan jiray dhawaan guuray waa jireen harti laftigiisa yaa muddo dambe kala jabay habar ma jeerteen baa tiri garaad baanu samaysanaynaa habar ma jeerteen yaa tiri garaad baanu samaysanaynaa warsan geli garaad cabdalle qoladan reerkan garaad cabdalle la yiraahday ballaaran awowgii iyo ka soo bilaabantay waa garaad cabdalle garaad maxamuud garaad yuusuf cumar garaad ma ahayn dubays ina garaad ma ahayn dhowr iyo toban baa warsan geli halkaa u dhaxeeya laftigeeda ee garaad baanu samaysanaynaa iyo waa yahay ma dhicine waa la istiri talada la isku talaad ma waxa weeye de ma samaysanaysaa taladii waa ballaaran iyo si u ballaaran talada waanu idinka go'aynayo garaad baanu samaysanaynaa iyo waa yahay iskama dhici jirin markii hore waa la jabiyay buuraha laga saaray ninka garaad cali dable la yiraahdo yaa 1500 meelaha aaday carab u baxay waxay u badan tahay turkiga inuu aaday waa markii qorigu soo baxay dhulbahantana qoriba ma aqoon ninkaas hub soo qaatay markii la yiri waa soo noqdeen nimankii iyo dhulkii bay u soo baxeen oo ciidan bay urursadeen yaa lagu duulay qorigana markaa dhulbahantii duulayay ma ogeynba dhulbahantii waa lagu soo jiriyay waxaa la yiraahdaa hadeer dirin yaxya u badnaa wixii ku dhintay meesha dirin yaxya maalintaas ay banaysteen maalintaas yay banaysteen oo ay banaanka la mareen iyagana horaantii 1700 baa waxaa ka go'ay ma jeerteen oo Ismaan Maxamuud